السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوسونو قد وناكسن داوديال أو سعد عبد الرزاق يعقوب ولي waxaynu ku dhex jirnaa casharadeenii quickbook-ga. casharkan lixaad ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa creating lists ama creating item list. waa maxay list? qaybtan hadda aynu baran doono waa qayb aad muhiim u ah marka lagu dhex jiro quickbook-ga. waayo quickbook-ga markaad soo dhex gasho oo aad abuurato companygii aad barato centriskii accountadii aad abuurato vendor ama wixii aad gashan karta aad gashato oo ah casharada aan hore u soo qaadanay waxa loo baahan yahay inaad diyaarsato listiskii haddaad tahay qof ganacsade ah waa qaybta ugu muhiimsan. tusaale waxaad leedahay xarun ganacsi xaruntaada itemada aad iibinaysid ayaad rabtaa inaad gashato halkan ama serviceka aad qabanaysid inaad gashato marka qaabkaad u samayn lahayd waa sidee waaya marka casharkeena maanta kaas ayuu ku saabsanaan doonaa. xabtii hore ugu xirneed page-keena ee subscribe saartay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. asxaabtana ugu cusub ee daawanaysana waxaynu leenahay page-ka subscribe saara si aad u noqotaan dadka ugu horeeya ama qofka ugu horeeya ee muuqaalkan uu soo gaaro. like iyo share intaba ha ka ilowna. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. casharkeena maanta aynu guda galno si aan u abuurano lists. marka hore qaybta menu-ga halkan waxaynu ka tegaynaa waxa loo yaqaano qaybta loo yaqaano list waan u jeednaa waa qaybtan list ayaynu galaynaa. lists markaad gasho waxa kuu soo baxaya item list. qaybtan item list waxaynu ka dooranaynaa lists markaynu galno waxaynu dooranaynaa item list. item list markaad gasho item list ayaynu joognaa. aynu weynaysano kan xogaa zoom aynu dhahno si aynu u aragno halka aynu gelayno. waaye item list markaad soo gasho waxaad tegaysaa qaybtan loo yaqaano item. halkan ayaynu furaynaa arrowgan ama falaartan hoos u jeeda. markaad furto qaybtan item waxaad kasii dooranaysaa new ayaynu dooranaynaa. new markaad doorato halkan markaad new ka doorato waxa kuu soo bixi doonaa dialog box. item ayaynu furnay new ayaynu dooranay. new markaynu dooranay waxaa noo soo baxay item list. qaybta typeska aad ka dooran lahayd new itemka aad samaynayso. waayahay halkan hadda waxaa taala markaad furtay halkan oo new markaad furtay service inventory part inventory assembly non inventory part waxyaabaas ayaa yaala. maxay yihiin marka? waa qaybta shaqada aad qabanayso ay khusayso. tusaale service aad qabataa. service waa markaad shaqo qabanayso sida dadka shaqaalaha ah oo kale. qofkan uu baxaya aqoontiisa ayuu ku shaqaysanayaa. wax uu iibinaya kale ma laha. xoogiis ayuu ama caqligiis ama cilmigiis ayuu iibinayaa. qaybtan waa service ayaa loo yaqaanaa. qaybtan waa inventory part. qaybta inventory part waa sida dadka ganacsatada hadda alaabay soo iibsadaan alaabihii isla sidooda ah ayay iibiyaan. waxaa loo yaqaanaa inventory part. saasoo kale qaybtan la yidhaahdo inventory assembly. inventory assembly waa marka tusaale ahaan qofkan uu qabanayo inuu soo iibiyo alaabtii uu soo iibiyey uu hagaajiyo. tusaale ahaan uu hagaajiyo markaan leenahay waxa waaye wuxuu ka shaqeeyaa qofkan xarun lagu sameeyo alaabtan furniture-ka la yiraahdo oo guryaha la dhigto kale tusaale ahaan ama xafiisyada ayuu sameeyaa. wuxuu soo gadanayaa qalab ayuu soo gadanayaa alwaaxyadii qalabyadii kale wixii oo dhan isku xirxirayaa. wuxuu ka soo saarayaa wax micno leh oo la iibiyo. qofkii saas u shaqaynayo wuxuu dooranayaa inventory assembly kan oo kale. qaybtan non inventory-ga isaga wuxuu noqonayaa alaabo la kireysanayo oo laga qaadanayo qofka uu soo isticmaalayo dibna uu soo celinayo. marka waxa la yiraahdaa taas oo kale non inventory parts iyadana way jirtaa. other charges marka qaybahan saas oo kale waa intaas ayaan hadda ka sheegaynaa. marka casharkeena aynu galno hadda waxaynu diyaarinaynaa inventory parts. inventory part aynu diyaarino. qaybtan ayaynu furnay inventory part ayaynu dooranay. inventory part markaan dooranay waxaa noo soo baxay boxkan hadda noo soo baxay. qaybtan waxaa yaala item name ama number. itemkaas aad xarayn rabto waa magaciisa
iyo waxa uu yahay qaybtan sub itemka iska daa manufacturer intan qaybahan oo dhan horta looma baahna waxaad soo gelaysaa hadda qaybaha waxna waa la buuxinayaa waxna waa isaga tegi kartaa dhib ma laha haddaad u baahatan waad buuxsan kartaa laakiin hadda anaga waxaynu buuxinaynaa qaybtan item number iyo qaybtan la yiraahdo cost qiimaha uu ka gadan yahay iyo sales price qiimaha aad iibinaysid kan waa halkan waa qiimaha shaygii aad soo gadatay ee inta ku jiray invoice-ka hadhow waxa uu ku soo qori doono shaygii aad xareysay qaybtan inta waa costigii aad ku soo gadatay intana qiimaha aad iibinaysid waa yahay waxaad kalood buuxinaysaa meeshan halkan loo yaqaano income account isagana waynu buuxin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo qaybtan reorder point waxaynu ka dooranaynaa reorder pointiga tusaale ahaan alaabaha dukaanka ku yaala markay gabaabsi kaa yihiin meel aad ka ogaan karto ayaa jira tusaalaan goormee digniin lagu soo bixiyaa tusaalaan waxaa ku yaala alaab kombiyuutaradii 20 kombiyuutar ku taala dukaankii ama xaruntii waxaa ku iibinaysay 20kaas taala goormee ayaad rabtaa inaad ogaato inaad dalbato alaabihii si aysan kaaga kala goyn markay 5 xabo ku taalo kale wuu ku soo sheegayaa alaabtaas way dhammaan rabtaa oo kale ayuu ku soo sheegayaa marka hadda aad buuxsanaysaa 5 markay taalo isoo digniin isoo siiyo oo kale waa 5 xabo kombiyuutaradii 5 xabo ka taalo saas oo kale digniin inuu ku soo siiyo reorder point minimum 5 xabo oo kale ayaan gashanayna meeshan on hand inta tirada markaas ku taala ayaad gashanaysaa intana total value isaga ayaa ku soo saaraya inta totalka tusaale ahaan inta gacanta on handiga iyo qiimaad ku soo gaday markuu isku daro ayuu inta ku soo dhigaya totalkii haddii aad rabto inaad shay kale sii buuxiso tusaale shay kombiyuutaradii ayaad buuxisay hadda qiimihii ay kugu fadhiyeen mid aad iibinaysid inta ku taala waxyaabahaas dhan waad buuxisay magacii aad siin lahayd haddii keliya intaas shaygaas uu yahay waxaad iibinayso okay aad leedahay laakiin haddii aad rabto inaad wax kale sii buuxiso shay kale tusaale printer ayaad rabtaa inaad buuxiso firinjeeradii oo kale aad rabtaa inaad buuxiso itema aad iibiso hadday badan yihiin itemada nekas ayaad riixaysaa si pagekan oo blanka kugu soo saaro waa yahay aynu aragna marka itemadii aynu buuxino hadda qaybtan item number ama item name waxaynu ku qoraynaa shayga aynu iibin rabno waxaynu dhahnay hadda computer oo kale computer laptop ayaynu dhahnay computer laptop waa yahay waxaynu dhahnay qaybahan dhan hadda muhiim ma aha waxaynu imaanaynaa qaybta costigii ayaynu nimid waa qiimaha uu kugu fadhiyo wuxuu noogu fadhiyaa tusaale $350 oo kale waa yahay waxaynu imaanaynaa haddana qaybtan sales price qiimaha aad ku iibinaysid waxaan ku qoraynaa tusaale ahaan 380 oo kale 380 tusaale ahaan qaybtan waxaynu imaanaynaa haddana income account-ga had iyo jeer waxaad ka dooranaysaa qaybta sales alaabahan waa alaaba sales alaaba la iibiyo waa income account-ga saleska ayaad ka dooranaysaa had iyo jeer qaybtan reorder point hadda waxaynu soo sheegnay in halkan aad ka dooranayso alaabahaas markay gabaabsi kan yihiin si uu digniin ama ku soo siiyo aad u ogaato alaabahaas inay go'i rabaan ilaan alaabta markay go'do anaga hadda ganacsiyada dadka qaar waxay sameeyaan alaabihii kama warhayaan ilaa ay dhamaato oo qof uu yimaado oo uu weydiiyo shay hebel ma haysaa markaas uu raadinaya wuxuu leeyahay maya way iga go'do haddaan soo marka si aad uga maarantato waa taas marka 5 xaba markay ku taalo ha ku digo adiga hadhow waxaad dalbanaysaa kaliya alaabaha ay ka go'i raba kaliya inta badan ay ku taala uma baanid inta ka go'i rabta marka item kasta markaad geliso reorder point-ga 5 markay taalo iisoo digniinisi waxaad dalbanaysaa kaliya oo raadsanaysaa inta gabaabsiga ah waayahay on hand inta ku taala 20 computer oo kale 20 ayaa taala tab aynu riixno furaha tab la yiraahdo inta waxa ku soo gashay 7,000 maxay tahay on hand 20 xaba ku taalo 20 xabo costiga aad ku soo iibisay ala xabad waa $350 7,000 ee inta ku taala waa intaas 7,000 ee halkan taala waa intaas waa yahay nekas aynu riixno hadda okay haddaan dhahno waxa soo bixi doona wuu xirmayaa halkaas shay aad u baahnayd kaliya laakiin nekas haddaad riixdo waxaan rabaa inaan buuxiyo shay kale marka shayadii sidaas ayaad u buuxinaysaa waa shaqada midda ugu hawl badan ugu shaqo badan waay marka aad rabto inaad xareyso alaab qaybtan waa qaybta ugu
mashquulka badan alaabihii dukaanka ama ganacsiga xarunta ganacsiga oo dhan waa in la wada xareeyaa sidaas daraadeed horey waxaan usoo sheegnay in xaruntaas markay cusub tahay alaabadeeda la xareynayo ay fududahay sababtoo ah invoice-dii halkan yaala alaabihiina kartoomay ku jiraan way yaalaan marka waxaa la isla wadayaa in alaabtiina la xareeyo sidan oo kale la sameeyo horeyna laga sii saaro iskafaaladii ama bakhaarkii lagu sii xareeyo marka shay kasta waad la socon kartaa laakiin haddii xarunta ay tahay xarun horey u shaqaynaysay laakiin QuickBooka aad dib uga baahatay waxaad ku qasbanaanaysaa in alaabihii oo dhan la tiriyo ilaa dhowr qof in lagu shaqeeyo alaabihii la tiriyo la record gareeyo xaashi lagu qoro la xareeyo ama Excel ku xareyso Excelka ku qoro hadhow ka soo koobiyeysa Excelkii haddaad rabto waad samayn kartaa laakiin haddaad rabto inaad gacanta ku buuxisid nidaamkan ayaad maraysaa marka qaabkan waa habkaad u xareyn lahayd alaabihii waana muhiim casharkan waayahay aynu riixno next ayaynu riixnay next markaynu riixnay pagekii isagoo planka ayuu soo baxay saad u jeedaan pagekii oo faaruq ah ayaa soo baxay hadaayay wuu buuxay hadda laakiin waa faaruq intii hadaayay way ka baxday marka nakasaan anay hadana wuxuu rabaa in ay kama kale lagu buuxiyo sidaas ayaad ku wadaysaa marka waxaan dhahnay inventory partiga waa muhiim inaad inta furto oo aad shayga ka doorato inventory part ayaynu dooranay alaabo kala duwan haday yihiin item number ama name numberkiisa ama magaca aad siin lahayd shaygaas waad buuxinaysaa qaybtan cost qiimaha uu kugu fadhiyo waaye qaybtan price waa qiimaha aad iibinaysid qaybtan sales ayaad ka dooranaysaa kama tegaysid reorder point minimum meesha digniinta aad ka rabto in alaabahan gababsi ka si aad u ogaato on hand inta markaas ku taala dukaanka total value isaga ku soo saaraya ugu dambeyn okay aad riixaysaa marka casharkeena maanta halkaas ayuu ku ekaan doonaa insha Allah waad ku mahadsantihiin daawashadiina sidaan hore idin ka codsanay asxaabteena nagu cusub ee page-kan waxaynu ka codsanaynaa inay subscribe saaraan like-tana aysan ka iloobin asxaabteena hore noogu xirneedna iyagana meel walba ay dunida ka joogaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin casharkeena maanta halkaas ayaynu kusoo koobaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu